kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa All Banaadir Online waxaan daawadayaal halkan idinkugu soo gudbinaynaa oo aad daawan doontaan taariikh nololeedka ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Khaliif Galleer kaas oo lagu aasay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka kadib markii la sheegay in uu u geeriyooday xanuunka COVID-19 inkastoo ay jiraan shakiyo kala duwan oo ku aadan jiritaanka COVID-19 inuu u geeriyooday waxaana soo baxaya tuhno ah in la siiyo sun sida ay ku doodayaan qayb ka mid ah marxuumka qoyskiisa waqti aan sidaas u dheerayn ayaa waxaa soo baxday in ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Khaliif Galleer uu ku wajahan yahay dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya kadib markii xukuumadda Addis Ababa ay u yeertay sida la shaaciyay waxaana halkaas uu kaga qayb galay wada hadallo u dhaxeeya Somaliland iyo sidoo kale maamulka isagu uu qaybta ka ahaa ee Qaatuma waxaana waqtigaas loo arkay in uu yeeritaanka dawladda Itoobiya u yeertay Cali Khaliif Galleer ay tahay dana siyaasadeed oo ku aadan in la dhexdhexaadiyo Somaliland iyo Qaatuma maadaama dhulka Qaatuma uu muhiim u yahay maamulka Somaliland muddo kooban ayuuna halka ku sugnaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Khaliif Galleer xilligaana ka mid ahaa mas'uuliyiinta maamulka Qaatuma State Cali Khaliif Galleer ayaa isaga oo ku sugan magaalada Jigjiga ee dawlad deegaanka Soomaalida waxa la sheegay inuu xanuun ku soo booday sida ay ka dhawaajiyeen mas'uuliyiin ka tirsan dawlad deegaanka balse dadka ka agdhowa ayaa sheegay in Cali Khaliif Galleer uu u geeriyooday cuntada sun loogu daray waxayna sheegeen in ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Cali Khaliif Galleer loo keenay raashin kadibna raashinka uu cunay wixii waqtiga ka dambeeyay ayayna sheegeen in uu soo wajahay xanuun kaas oo ahaa xanuun aad u daran waxaana waqtigaas wixii ka dambeeyaba ay sheegeen in ay la daaladhacayeen sidii ay ku badbaadin lahaayeen ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Khaliif Galleer ugu dambeyntiina waxa uu geeriyooday xanuunkii soo wajahay kaas oo asal ahaanba ay sheegeen in uu ka yimid raashinka waxyaabo loogu daray markaan halka kaga soo tagno waxyaabaha sababay geeridiisa oo xilligan shaki aad weyn laga muujinayo dawlado kala duwan oo Mareykanku qayb ka yahay u dalbaday in la baaro ayaan si kooban waxaan kaga hadli doonaa taariikh nololeedkii Cali Khaliif Galleer ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Professor Cali Khaliif Galleer waxa uu ku dhashay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool 15 Oktoobar sanadii 1941 halkaas oo uu ku soo qaatay qaybtii hore ee noloshiisa dhalinyaranimo iyo waxbarashadiisa asaasiga ah waxbarashadiisii dugsiga sare wuxuu degmada Sheekh ku dhameystay sanadii 1962 heerka aqoonta maadiga ah oo uu qayb ahaan ku soo qaatay jaamacadda dibadda ku yaala wuxuu ka gaaray ilaa iyo darajada PhD wuxuuna bare ka noqday Soomaaliya sanadii 1963 Cali Khaliif Galleer waxa uu helay deeq waxbarasho oo ay siisay jaamacadda Boston ee dalka Mareykanka wuxuuna shahaadada heerka koowaad ee jaamacadda sayniska iyo siyaasadda uga qalin jabiyay sanadii 1965 sanadii 1967 ilaa 1969 wuxuu shahaadada heerka koowaad ka qaatay jaamacad ku taala magaalada New York ee dalka Mareykanka shahaadadaas wuxuu diiradda ku saarayay cilmiga maamulka dadweynaha wuxuuna ku soo baxay dhammaan shuruudihii looga baahnaa in uu professor ku noqdo buuggii uu darajadiisa aqooneed ku difaacday wuxuu qoray 1971 ilaa 1972 intii u dhaxaysay 1982 ilaa 1987 wuxuu waxbarashada ka qaadanayay macadka Professor Cali Khaliif Galleer meelihi uu ka soo howlgalay ayaa waxaa ka mid ah macadkii Somali Institute of Public Administration oo loo soo gaabi jiray SIBA macadkan oo uu markii hore ka ahaa cilmi baare ayuu ugu dambeyntii 1973 ka qabtay xilka agaasimaha guud intii u dhaxaysay 1974 ilaa 1976 wuxuu agaasimo ka ahaa mashruucii sokorta ee Jowhar 1967 ilaa 1982 wuxuu maamulayay mashruucii sokorta ee Jubba markaan u nimaadno dhanka xilalka siyaasadeed ee ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Khaliif Galleer uu soo qabtay Cali Khaliif Galleer wuxuu door weyn ka soo ciyaaray siyaasadda Soomaaliya tobannaankii sano ee la soo dhaafay dhowr sano kadib markii Soomaaliya xorriyadda qaadatay ayuu si weyn uga soo dhex muuqday saaxadda siyaasadda sanadii 1980 ilaa 1982 wuxuu soo ahaa wasiirkii warshadaha ee dawladda kacaanka ee uu madaxweyne ka ahaa Allah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre ka hor inta aan loo magacaabin xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya sanadii 2000 wuxuu noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaankii lagu yagleelay shirkii Carto 3 bilood markii ay dhisneed xukuumaddii uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa xildhibaanada baarlamaanka ayaa xilligaas kala noqday codka kalsoonida 20kii bishii Agoosto sanadii 2012 Cali Khaliif waxa uu ka mid ahaa xildhibaanadii loo doortay baarlamaanka federaalka oo ilaa iyo hadda uu ka mid ahaa ka hor geeridiisa sanadii 2014 Cali Khaliif wuxuu soo doortay
sanadii 2014 cali khaliif waxaa loo doortay madaxweynaha maamulka la magac baxay qaatuma ee gobolada sool iyo sanaag doorasho dhacday bishii agoosto ee sanadkaas ayuuna ka guuleystay maxamed yuusuf jaamac oo ahaa musharax la tartamayay kulana tartamayay xilka madaxweynaha ee qaatumo in muddo ayuu maamulkiisu uga ololeynayay in uu aqoonsi u helo dowladihii tan ka horreeyey iyo kuwii soo maray Soomaaliya ha yeeshee weli ma aysan u suurtagelin cali khaliif inuu aqoonsi u helo maamulka qaatumo state cali khaliif galeer ayaa ahaa nin siyaasadda Soomaaliya miisaan iyo mug lahaa wuxuuna ahaa professor si weyn looga yaqaano geyiga Soomaaliya xilligan waxa uu qayb ka ahaa oo uu ku jiro siyaasadda dalka dad badan ayaan isweydiinaya waxyaabaha xilligan keenay in cali khaliif galeer ay u yeerto dowladda Itoobiya kadibna sida la sheegay in la siiyay sun raashinkana loogu daray sababtuna ay taas inuu u geeriyooday xilli maamulka dowlad deegaankuna ay shaaca ka qaadeen inuu u geeriyooday cudurka COVID-19 kaas oo saameyn ballaaran ku yeeshay dalka Soomaaliya balse xilligan meelo yaryar dalka laga sheego in uu ka jiro ehelada cali khaliif galeer ayaa waxay dalbadeen inta aanan marxuumka meedkiisa la keenin magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka in baaritaano dheeraad ah lagu sameeyo waxayna suruud kaga dhigeen dowladda Soomaaliya markay Muqdisho ka soo dejiso oo ahayd meeshii ugu dambeysay ee lagu aasiyo in cali khaliif galeer la baaro meedkiisa waxyaabaha keenay dhimashadiisa balse dowladda Soomaaliya ma aysan bilaabin baaritaan ku aadan meedka markii la soo dejiyay sida aanu ka warhelnay xogtan aanu ku helayno balse warbaahinta madaxa bannaan oo loo diiday in ay ka qayb gasho aaska qaran ayaa Muqdisho aas loogu sameeyay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya cali khaliif galeer arrintaas ayana dadka qaar waxay u arkayeen in dowladda Soomaaliya ay diidaysay in waxyaabaha qaar ee hadallada ah ay aad u sii badanayaan taas oo muujin karto shaki weyn oo ah dowladda inay ka warqabtay dhimashada ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya cali khaliif galeer iyo waxyaabaha keenay waxaana taasi beddelkeeda dowladda ay sheegtay in telefishinka qaranka kaliya loo ogol yahay inuu ka qayb galo aaska qaran waa ayna suurto gashay oo cali khaliif galeer waxaa lagu aasay Muqdisho ee baahu naxariista ra'iisul wasaarihii hore ee dalka hadda wixii ka dambeeya dowladda Soomaaliya ayaa looga fadhiyaa in ay shaaca ka qaado waqtiga ay bilaabayso baaritaanka ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya cali khaliif galeer waxyaabaha keenay dhimashadiisa iyo haddii dowladda Soomaaliya ay baaritaan sameysay inta aysan aasin meedka ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya cali khaliif galeer waxaana dad badan oo siyaasiyiinta Soomaaliya qayb ka yihiin ay war ka sugi doonaan dowladda Soomaaliya iyadoona hore dhowr baaritaan dowladda Soomaaliya ay ballan qaaday ay noqdeen kuwo ku soo idlaaday natiijo la'aan waxaana baaritaankan hadda dowladda Soomaaliya laga sugay uu yahay in ay cadeyso waxa keenay dhimashada ra'iisul wasaare cali khaliif galeer maadaama meedkiisa la keenay Muqdisho dowlado ka baxsan Soomaaliya oo Mareykanku qayb ka yahayna ay dalbadeen in la baaro meedka inta aan la aasin si loo ogaado waxyaabaha keenay dhimashada cali khaliif galeer daawadayaal intaasi waxaa ku dhan warbixintii aan sida gaarka kaga hadlaynay waayihii nololeed ee ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya cali khaliif galeer ilaa iminkana ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya waad ku mahadsantihiin la socodka iyo daawashada warbixinteenna iyo guud ahaanba wararka iyo warbixinada ka baxa All Banaadir Online